Suuradda Al-Bayyinah ama Lam Yakun waa suuradda 98aad marka loo eego tartiibta suuradaha Qur'aanka Kariimka. Waa suurad madani ah, waxay ka kooban tahay 8 aayadood, 94 kelimadood iyo 412 xuruufood. Suuraddan waxay ka hadlaysaa masiirka gaalada ahlu kitaabka ah iyo gaalada mushrikiinta ah u dambeeya iyo masiirka wanaagsan ay leeyihiin kuwa Allah subxaanahu wa ta'aala rumeeyay iyo rasuulkiisa sallallahu alayhi wa sallam rumeeyay. Nala faham micnaha suuradda. بسم الله الرحمن الرحيم magaca Allah ayaan ku bilaabaynaa ee naxariis guud iyo mid gaarba naxariista. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة maysan ahaanin kuwa gaaloobay ahlu kitaabka ah iyo kuwa sanamyada caabuda ah kuwa ka fakanaya oo ka tagaya xumaanta iyo gaalnimada ilaa ay ugu timaaday xujadii cadeed. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة rasuul ilaa ugu yimaaday xagga Allah ka imaaday rasuulkaas oo aqrinaya warqado oo la daahiriyay فيها كتب قيمة waxaa ahaatay suxufta dhexdeeda waxyaabo la qoray oo toosan. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة maysan kala tagin kuwa la siiyay kitaabka markay u timid kadib mooyay xujadii cadeed markaas ayay kala tageen. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة lama amrin ilaa ay caabudaan mooyay alle iyagoo u saafiyeelaya Allah subxaanahu wa ta'aala cibaadada shirkiga ka leexanaya kana tagaya gaalnimada inay toosiyaan mooyay salaada inay bixiyaan mooyay sakada kaasina waa diinta toosneed. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية kuwa kufriyay oo gaaloobay ahlu kitaabka ah iyo kuwa sanamyada caabuda jahannama naarteeda dhexdeeda ayay ahaanayaan xal ay ku waarayaan naarta dhexdeeda kuwaasi iyagu inta Allah abuuray ayay ugu shar badan yihiin. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية kuwa rumeeyay xaqa iyo xujada cad rumeeyay sameeyayna camalyaalka wanaagsan salaad iyo sakada ugu horeeyaan kuwaas iyagu intuu Allah subxaanahu wa ta'aala abuuray ay ugu qeyr badan yihiin. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه abaalkooda rabbigooda agtiisa ay ku leeyihiin waa waarida janooyinkaas ay socoto hoosteeda wabiyaasha xal ay ku waarayaan jannada dhexdeeda weligood. Allah baa raali ka noqday xaggooda iyagana raali bay noqdeen Allah xaggiisa arrinkaasna cid buu u sugnaaday rabbigiisa ka baqay. ugu dambeyn haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar la wadaag asxaabtaada share dheh hana ilaawin inaad TikTok-gina follow soo dhahdo mahadsanid.